kulan wacan daawada meel walba oo aad joogto waxaad kusoo dhawaataa janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada hadaan oo kale janaaladan waxaa idinkugu soo gudbinaa maxaa maanta laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan sidii karna xiis weyn oo daawadayaashina ku taxan bartaan waa la wadaagi kartiin hadda muuqaalkan waxaan ku bilaabi doonaa filmada box office ka saaran ee Ramset iyo sidoo kale filmka kale ee Tangood lacagaha ka keenay box office ka maalintooda labaad ayaan isla eegi doonaa kuwaas oo filmadani lagu aadiyay fasax waaweyn xilli ay ka jiraan gudaha Hindiya Diwaaligana loo dabaaldegayo hadaba filmkaas waxaan ku bilaabi doonaa filmka Ramset ayaa maalintii labaad wuxuu sameeyay lacag isku hufan wuxuuna keenay lacag gaaraysa 11 karoor taas oo ku dhigan filmka labadiisa maalin wadarta guud inay tahay 26 karoor filmka ayaa maalintii labaad waxa uu sameeyay hoos u dhac 25% taas oo qayb ka ah filmka hasaatee filmka faa'iido laga helay marka loo eego waxay ka dhigan tahay in uusan sameynin hoos u dhac deegaanada Gujarat UP kuwaas oo wacan fasaxada Diwaaligaba filmka ayaa sidoo kale waxa uu sameeyay hoos u dhac si lamid ah marka la barbar dhigo filmka Tangood kaas oo hal mar la wasaar box office-ka hasaatee farqiga u dhaxaysa waxa ka dhigan tahay filmkan uu si fiican kaga gadmayo qaybaha Hindiga gaar ahaan magaalooyinka Gujarat Saurashtra kaas oo ka sameeyay lacag gaaraysa markii labaad 2.25 karoor taas oo la dhigan lacagta sameeyay maalintiisa koowaadba sida magaalooyinka kale Rajasthan iyo CI ayaa wuxuu ka sameeyay lacag gaaraysa 93 leeg iyo sidoo kale 50 iyo 6 leegba taas oo marka loo fiiriyo ka dhiganta lacagaha ka sameeyay deegaanadaasi inuu san jirinba film awoodo inuu lacagahaas ka sameeyo maalintiisa koowaadba filmkan ayaa wuxuu ku wanaagsaneen magaalooyinka qaar asoo hoos u dhac ka sameeyay filmka maalintiisa labaad sidoo kale filmkan ayaa wuxuu yahay film aan ku soconin dhalinyarada markaan socoto marka loo fiiriyo qaabka filmku uu yahay asaatee saasayta filmku uu gadmaya sidoo kale filmka ayaa waxaa lagu wadaa in uu sameeyo hoos u dhac maalmaha soo socotay labada maalin ah taas oo fasaxyada Hindiya ay si dhamaanayaan wuxuuna targetku yahay filmkan inuu lacag hufan uu sameeyo sabtida soo socotay iyo xad soo socoto kuwaas oo fasaxyada ka dhacaan gudaha Hindiya laga yaabo hadaba aan isla eegno sidoo guud labadiis maalin lacagaha uu keenay maalintiisa koowaad ee Talaadada filmka la saaray wuxuu keenay 15 karoor nadiif ah halka Arbacada shalayna uu keenay 11 karoor nadiif ah taas oo wadarta guud filmkaas ka dhigaysa 26 karoor haddii aan fiirin filmka kale ee Tangood kaas oo Ajay Devgan iyo sidoo kale xiddiga kale saddexaad ay hogaamiye ka yihiin ayaa maalintiisa labaad waxa uu keenay lacag gaaraysa 5.75 karoor taas oo maalintiisa labaad ay ka dhigan tahay in uu sameeyay lacag iska hoosa hasaatee marka loo fiiriyo qaabka filmkan uu ku soconayo waxa laga filin karay in lacagaas uu la imaadaba filmka ayaana uu wacan in uu sameeyo hoos dhac in uu si dhamaanayo fasaxada maalimaha holiday-ga dhibaatada filmkan haysta ay wuxuu sameeyay lacagta uu sameeyay maalintiisa labaad hasaatee filmka ayaa lacagta ku furtay maalintiisa koowaad sidoo kale dhibaato ee keentaba filmka ayaa maalintiisa labaad hoos dhac wuxuu sameeyay 25% asoo kala siman film kale Ramset filmka ayaa wuxuu ku xooganaa sidoo kale isku celiyay fasaxada holiday-ga kaas oo sidoo kale filmkaasi uu yahay mid oo cadeeyay in uu lacag fiican ka sameeyay magaalooyinka Gujarat UP hasaatee filmka ayaa fasaxay waxa adeeso ka jir lahayn ayaa waxa laga yaabaa in filmkaas uu sameeyo hoos dhac gaaraysa 40% labadiis maalin filmka lacag uu sameeyay markan waxay ka dhigan tahay 13.25 karoor taas oo filmkaasi uu lagu wado in uu maalmaha soo socdo labada maalin ah ee xigta inuu filmkaasi lacag hoos uu sameeyo hoos dhac uu sameeyo filmka ayaa laga yaabaa ayaa la yiri fursad u helo maalmaha sabtida axad soo hadanba taas oo dhici doonta fasaxada ubtanka kaas oo Hindiya lagu dabaaldegi doono hasaatee wuxuu caawin doonaa yali kaliya shaashadaha multiplex-ka hadaba aan isla eegno Tangood filmada lacagaha uu sameeyay labadiisa maalintiisa koowaad Talaadada wuxuu keenay 7.50 karoor maalintiisa labaad ee shal Arbacada waxa uu keenay 5.75 karoor taas oo wadarta guud filmka ka dhigaysa 13.25 karoor ugu dambeyn waxaan eegi doonaa xiddiga Kartik Aaryan ayaa markaan la sheegay inuu la shaqeeyo doono xiddigta Alaya kaas oo ka soo wada muuqan doona filmka Freddy waxaana filmkaasi la sheegay in lagu soo fasaxi doono OTT-gaba filmka haatan lagu jecel yahay gudaha Hindiya sidoo kale ah xiddig marka magac ka helaya gudaha Hindiya waxaan xiddigan uu yahay xiddig ka soo muuqan kara door walba ee lagu magacaabo Kartik Aaryan ayaa waxa lagu arki doonaa filmka Freddy kaas oo kala soo muuqan doona xiddigta Alaya kaas oo lagu soo fasaxi doono OTT-ga gaar ahaan Disney Plus Hotstar waxaana soo saare ka ah Balaji Telefilms iyo sidoo kale Northern Lights film waxaana director-ka filmkaasi Shashanti Ghosh filmkaasi ayaa waxa uu ku saabsan yahay argudasho iyo sidoo kale khiyaano filmkaas ayaana
waxaa Kartik Aryan uu arki doonaa door oo weligiis kasoo muuqan filimkaasi ayaan waxaa lagu soo fasaxi doonaa si gaar ah Disney Plus Hotstar. Gaurav Banerjee kaas oo ah madaxa qaybta nuxurka ee Disney Plus Hotstar ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in markaan ay tahay mar ay soo dhaweynayaan xidiga ugu shidan ee Bollywoodka superstarka ee Kartik Aryan taas oo aan ku soo dhaweynayo sheegay Disney Plus Hotstar wuxuuna sheegay xidigaas inuu kusoo bixi doono filmka Kartik ee blockbuster noqon doona ee Freddy kaas oo lagu wado inuu yahay film argosy ah waxaana filmkaasi lagu soo fasaxi doonaa si toos ah Disney Plus Hotstar. xidigani Kartik Aryan ayaa markaan waxa uu ka hadlay wada shaqeyntiisa Disney Plus Hotstar wuxuuna sheegay inuu dareemayo farxad inuu qayb ka ahaado Freddy sheekadiisa filmkaasi waxa uu sheegay inuu yahay film uusan hore u sameeyay sheekahan marka loo fiiriyo waxaana uu ogolaanayaa uu sheegay inuu markaan uu farsamadiisa xagga jaliinka oo si horumariyo sidoo kalena uu la imaado filmo cusub oo doorar kala duwan ah waxaana markaan sugilayo sheegay in filmkaasi lagu soo fasaxo qaybta Disney Plus Hotstar asoo sidoo kale uu sheegay xilli dhow inuu rajeynayo in daawadayaasha filmkaasi ay ka heli doonaan iyo sidoo kale doorkiisa cusub ee filmkaasina ay jeclaan doonaanba. wagaag daawada inta ayaan kusoo xirina warbixinadeena maanta aan kaga hadlayno maxaa maanta laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan xiiso u lahayn daawadayaashina ku taxan barta tusmada iyo sidoo kale barta kale ee leeska waad la wadaagi kartiin haddii warbixinadan ka heshaan la wadaaga asxaabtina laakiin inoo saartay dad badan oo u gaaro waad ku maasantiin alaba sad muuqaalada u daawataan oo aad noo dhiirigelisaan wararka kale xigana ee soo kordhana ee arrimaha Bollywoodka la xiriirana warbixinadan kale ee channelka kugu soo baahino ayaan idin soo baahin doonaa waad ku maasantiin alaba sida aad inoo la jaan qaadaan.